Jabhad shalay laga dhawaaqay bariga Somaliland ama galbeedka Sanaag anigu ma arka Jabhad waxaan u arkaa riwaayad nin dhigayo dadka meesha isugu yimid waa odayaashayadii waa inamadayadii intooda badan waxa ma ogeyn nin qura wax ogaa ninkaas waxa ninkii dharka safariga xidhnaan magaciisa ma garan maayo ninkaan nin baa soo diray laba kalmadood sheegna uu ku yiri kelmadda horu sheeg ku yiri waxay ahayd in markii laga diiday Somaliland wixii laga dhawaaqay baryahan dhownooda waday inuu ninkaas taar u diray xamar uu leeyahay kaligay baa fulinaya wixii Somaliland ugu diiday waana Jabhad u samaystay taas waa taa waxa kale uu doonayay inuu meesha ka sheego uu dhagaha dadka ku rido inuu wali u hamuun qabo dhiigi ka dhacay ceelafeyn markuu leeyahay ragii ceelafeyn ragii wax laayay ceelafeyn isaga soo soconay isaga taxaashaya anigu waxaan moodaynaa shirkada ceelafeyn dhamaatay waxaan moodaynaa in halkan Jabhad iyo nin Somaliland maanta buuq wala iman karayaan jirin Somaliland maanta waxaan la arkin laga yaacaya waa diidada laga yaacayo waa cudur maanta dad baan isu keenaya iyo inama yar baan meel ku ururinaya oo ma oolin wadaadka aan waxa magacaay ma Somaliland waa taqaana wadaadka ma oolin waxaan leeyahay arrinkan ninkaas ku dhawaaqay Somaliland ay waxbaha ku dhagtaagina xaq doon maaha waa kursi xisbi kulmiyo doon waxa allaali waxay nagayna yeelaysaa ma jirto meel baa la ruuxayaa haddii deeray wax ka siinayo waa ha ka siiyo laakiin ibaatana inoo soo wado meel laga dagaalamana kamu dagaalamin meel ciidan lagu urursadana kuma urursan Somaliland dhexdeeda galbeedka Sanaag afarta qoraba ciidanka qaranka ka xiga wax dhibaato u maleyn maayo deena keenayso waxaan islahaa caarad dabadii nin reer Somaliland inaanu intuu bira yar urursadiyo qoryo yarar odhanayn waxba sameynaya waayo caarad intuu reer weyn cuskaday ayuu haddana ku dhawaaqay reerkayga igu diiday aniga dagaalkii taasoo ka baxay maanta afar inanoo yar yar oo waliba beel yar oo kooban ka soo jeeda ayaa Somaliland dal dagaalamaya waa riwaayad waxaan leenahay wax maad ganin meel la kamaad ganin goorna maad ganin anigu ma doonayo horta inaan hebel leeyahay laakiin kii meesha laga sheegay ee la lahaa lama hadli karo ee la lahaa lama soo qaadi karo ee la lahaa cidma taaban karto ee uu deegaanka boqorka uu ahaa ee uu sheegay iyagu ay sheegeen de kaasuma ka dambeeyo waana macruuf waana la wada garanaya cabdiida wuxuu anigu daha kama rogin dadku soo yaqaanin ciidan aqoonin ma jirto guriga laga sameeyay la yaqaana meesha laga sameeyay la yaqaana inamada sameeyeen ka hadlayeen garanayna waxa way ninkaas ka dambeeya waxana kama qaadaya aniga iyo dadka reer Soomaaliya oo dhan waxay ogin Jabhad inaan cid kale ka dambeeyo boqormood ka dambeeyo ha hadla de hadoon ka dambeeyo